طعم الدنيا تغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. وعن جعلهاي لما أول على هاي قابرت لكتحن إن مغشكيو قصة عجيبة وحلق النبي الله عيسى عليه السلام دعلي قصة وعي لا هاي ويكون صابسن تحي والصدقة معناها الصدقة إن أي شيء كستكاد دفاع يسيك تصيص قصة وحكم بالعام يساسلت واحد علي اللي جي نبي الله عيسى عليه السلام ayaa ninba dadka aad u yar kadeebay oo dadka aad ka u dhibka badan kamid ahaa deetana nabiyullaahi ciise calayhi salaam baa lagu dacweeyey ciisena dee kulley dabca waa nebi loo waxyoonayo kolleyna ninkan xaaladiisa iyo sida looga cabanayana ilaahay subxaanahu watacaala baa tusay ciise marka qoladii wuxuu ku jawaabay ilaahay subxaanahu watacaala baa idinkaga filaanaya iska taga ninkii markaa wuxuu ahaa dadka marqumaalka ah ee xaawada iyo waxyaabaha soo gurta ninku markaa buurta ku maqnaa xilligan hawsha ay nabi ciise lagu dacweynayo isagu uu maqnaayo xagga buurta ku maqnaa kadib ninkii aw sidaa yidhi nabiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa markuu xaabadii soo qaaday ayaa isaga oo nool oo caafimaad qaba yimid nabi ciise markaa markuu leeyahay ilaahay baa ninka filaabay macnaha in uu xilligaaba aanu nolol ku soo noqon ayaa dawaa nabi loo waxyoonayay ayuu tabaniyey markay intaasi dhacday oo ninkii oo kurkursanayo oo socda uu magaaladii soo galay ayaa nabiyullaahi ciise leeyay yaa nabiyallah ninkii isagoo nabad qabo waa ka magaaladii soo galay deetana uu yeedhay nabi ciise calayhi salaam ninkii buu yidhi wabakaale deetana wuu yimi ninkii markuu yimi ayuu ku yidhi war maxaad maanta samaysay camal wanaagsan oo aad maanta samaysay intaad ceeddu soo baxday miyay jirta markaasuu ninkii yidhi haa 2 xaboo rootiya ayaan watigu on qaatay saaka dabcan uu cunayay waa qof hawl iyo buur iyo tagiye labadii xabbo xooxdii ama rootigii ayaan mid sadaqaystay buuri midna aniga cajiib bal waxa dhacay hada u fiirso inta markuu yiri ayuu nabiyullaahi ciise yiri waan xabadana sido ee dhabarka ku saaran baa fur oo furay dhulku dhigay kala fur buuri waa la kala furay xabadii waxa lagu dhaxarkay mas weyn subxaanallah oo dhax fadhiya oo deetana xaabadii qoriyi xaabadu ka koobneed mid kamid oo weyn sidaa u qaniisa markaasuu yidhi nabiyullaahi ciise calayhi salaam maskaasi adigu ku cuni lahaa waanad ku dhiman lahay laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kaaga leexiyey waa sadaqada aad saaka bixisa ee 2 xabee rootiga ama laxooxda aad mid sadaqaysa أيها الإخوة الصداس وحن وقدر لي محن وفايدي سنة صدقته وحي كنت سنة إن أي تهي شيء عجيب بدن ويا بدن حتى النبي عليه الصلاة والسلام وكيلها والصدقات يسكد ويا حتى قفك حنو سنة دي صدقة الله قبحيه بإذن الله وعافنا مركا ننكا كان دبكي كل دعي لها محاك الدفاعي وصدقات بحيه marka walaalayaal bil barakeysan baynu ku jirnaa qisadaana waxaynu ka faa'iidnay inay sadaqadu ahmiyad leh waxa ugu dambeeyo kaga baxaya sadaqadu maalinka qiyaame ee banka ballaaran ee aakhiro la taagan yahay qof walba wuxuu harsanayaa sadaqada sidina bulshada marka sadaqadu waa shayga aadka iyo qiimaha u leh meel ay nagaga hadhaysan ma jiro marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala hayna waafajiyo oo haynaga dhigo kuwii sadaqadaasi bixisada bishan barakeysan ku jirnaa ka faa'iideysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.